موضوع أباي كقرنت وريسك مانجمنت ومحي هورتا ريسك مانجمنت محالدها ريسك مانجمنت marka aad leedahay cryptocurrency ama aad ka ganacsanayso waa nidaam aad ku ilaalinayso hantidaada si aysan u lumin lacag badan marka suuqu isbedelo ama qalado ay dhacaan waa hab aad si aad u xeel dheer oo ku xakameynayso khatarta la xiriirta isbedelka qiimaha ama waxa tooya qaladaad shakhsi ama dhacdooyin lama filaan ah ujeedka ugu weyn ee risk management waa inaad hoos u dhigto khasaaraha inaad ilaaliso faa'iidadaada inaad ganacsigaaga ka dhigto mid waqti dheer socon kara qodobada muhiimka ah ee risk management way fara badan yihiin hal ayaa isku dul dhigi doonaa hadduu ala yiraahdo waxa ugu horeeya stop loss order waa amar si toos ah ugu iibinayo koonkaaga haddii uu gaaro qiimo aad adiga horey u cayintay tusaale haddii aad iibsato coin 10 senti maraayo waxaad dhihi kartaa haddii uu gaaro 0.8 iibi qodobka labaad waa take profit order waa amar kuu oggolaanaya in haddii faa'iidadaada xirato marka coinka uu gaaro qiimo go'an tusaale haddii aad iibsato coin gaaraya ilaa 10 senti waxaad dhihi kartaa marka uu gaaro 15 senti iibi qodobka saddexaad waa risk reward ratio waa cabir lagu xisaabiyo inta aad diyaar u tahay inaad khatar geliso si aad u hesho faa'iido tusaale haddii aad khatar gelinayso $10 si aad u hesho $30 ratio-ga waa inuu noqdaa 1-3 qodobka afaraad waa position sizing waa inaad og tahay inta lacag aad hal meel gelin karto qaanuun caadi ah ha gelin wax ka badan ilaa 1% 5% hantidaada guud ahaaneed hal ganacsi qodobka shanaad waa diversification kala faafinta hantida ha gelin dhammaan lacagtaada coin kaliya oo ku kala faafi coins kala duwan haddii uu mid khasaaro mid kale laga yaabo inuu faa'iido kuu sameeyo doonta overtrade ha samayn ganacsiyo badan oo aan la xisaabtamin waxa kordhaya qaladaadka iyo khasaaraha cold wallet usage u kaydi crypto badan oo aad si joogto ah u isticmaalin meel aan internet lahayn sida hardware wallet si aad uga fogaato hack talooyin muhiim ah ha ku ciyaarin lacagta aad u baahan tahay sameey qorshe ka hor inta aadan gelin trade-ka had iyo jeer qiimee suuqa ka hor inta aadan ganacsi gelin xusuuso khasaaro waa qayb ka mid ah ganacsiga laakiin khasaaro weyn lama ogola wanaagsantihiin guys